fanaaniinta ay ka mid yihiin Yurub Gaanya iyo Hodan Cabdullaahi iyo Nicmaan Hilaac ayaa diiday sababtii loo cuskaday in laga saaray kooxda fanaaniinta ee xidigaha geeska waxay ka dambeysay shir magaalada Hargeysa ka dhacay markii dambana lagaga dhawaaqay in kooxda xidigaha laga saaray afarta fanaan oo caan ah sabtidii ayay u cuskadeen in fanaaniinta laga saaray kooxda wariyaha BBC Axmed Saciid Cige ayaana weydiiyey Xasan Laab Salaax oo ah gudoomiyaha kooxdaasi. horta Axmed oo qof kasta oo sharciga iyo dastuurka iyo xeerka xidigaha ku gafa xasan dhuxul ha ahaadee waa laga saaraya oo sharciga ka weyn qofka ama xubinka mana jiro nacayb qof loo qabo laga saara kaliya taa ma aha maxay heeday markii ugu horeysay laga saaray bini'aadamku haday meel wada joogaan way isku gafayaan way isqabanayaan wal wada hadlaya oo imanaya maxay ismaandhaafka wax qoran oo loo noqdo markii aduun jirin ay mushkiladu tahay bal ii sheego masalan in labada hablood ee Yurub Gaanya iyo Hodan Cabdiraxmaan Dacaan mooyee yaad ka saarteen laba qof kale oo ka saarteen bari waxa kamid ah Nicmaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac iyo Leela Yuusuf Anad maxaad u cuskatay markaa waxay kooxdu leedahay daljoog iyo dibad joog daljoogta waxaan u cuskanay waxa jira bishiiba hal mar buu kooxdu shirtaa shirkaasi waxa laga wada hadlaa waxyaabaha qorsheysan waxyaabaha qabiyoobay iyo waxyaabaha la qabtay ma jiro xubin ka maqnaan kara shirkaasi oo fasax ka haysan maamulka hadiiba uu 4 jeer ama 4 bilood qofku ka maqnaado si bilaa shuruuda waxa uu waajibaad gudanayaa maxay heeday ciqaabtaasi way kala fududahay mar waa ganaax mar waxa heeday waa shaqo joojin ama hawl joojin oo hakamaanu sameynaa marna gebi ahaanba waanu ka saarnaa marka qodobadaas maanu adeegsanay laakiin markaad eegto Yurub Gaanya oo kale waxa la leeyahay xamar bay tagtay ku xijowday xamar horta waa la tagi karaa magaalooyinka la tago maalin nool bay ka mid tahay waxaan qabaa in aragtidaasi waxa isku beegmay xaaladda xamar ay ku joogtay iyo waqtigan iyo ka saaritaanka laakiin ma qabo anagu ma nihin siyaasiyiin qodob xamar bay tagtay uma cuskan karno laakiin in cid kasta oo qadiyada iyo jiritaanka Soomaaliland ka hortimaada sidii shacabku dareenkooda yahay Soomaaliland ma anagu aaminsan marka miyay ka hortimi Yurub Gaanya Nicmaan Hilaac iyo Hodan Cabdiraxmaan miyay ka horyimaadeen gooristaaga Soomaaliland ma qabo imika dad badan waxay leeyihiin xidigii geesku waxay isu bedeleen siyaasiyiin ama dad meel gaara laga yaabo inay difaacayaan hadaba dadka Soomaaliga ku hadla markan iyaga dadka sida le aan su'aashooda weydiiyay maxad ka jawaabsan waniyahow bini'aadamka Ilaahay abuuray aragtidooda waa dhaliil iyo toosin labadaba cidda aaminsan sidaasna iyaday ku koobantahay laakiin waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo na dhaliisha oo tilmaanta iminkan kuleeyahay anagu siyaasiyiin manihin kuma milmi karno